Horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa ansixiyay in Sacuudi Carabiya ay iibsato kooxda Newcastle United sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay maanta soo saareen. Premier League, Newcastle United Football Club iyo sidoo kale shirkadda ST James Holding Limited waxa ay maanta heshiis ku gaareen iibsashada kooxda ee BIF Public Investment Fund ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Premier League. Heshiiska ayaa ku kacaya 305 milyan oo pound waxaana uu hirgalay isla maanta. BIF waa sanduuqa lacagta dadweynaha ee dowladda Sacuudi Carabiya, inkastoo uusan si rasmi ah ugu magacawneyn, haddana milkiilaha rasmiga ee Newcastle ayaa hadda loo arkaa Mohammed bin Salman, maadaama uu yahay ninka ugu awooda badan dowladda Sacuudiga isla markaana uu sanduuqa BIF uu hoos tago. Madaxa BIF Yasir Al-Rumayyan ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqono milkiilayaasha cusub ee Newcastle United oo ah mid ka mid ah kooxaha ugu caansan uguna faca weyn horyaalka Premier League Ingiriiska. Heshiiskan ayaa waxa uu hadda ka hor burburay sanadkii hore ee 2020 markii Premier League uu ku adkaystay in la kala saaro BIF iyo dowladda Sacuudiga, sidoo kalena uu Sacuudi Carabiya ay dalkeeda u ogolaatay in laga daawado telefishinka khadar ee beIN Sport. Taageerayaasha kooxda Newcastle United ayaa dabaaldeg ku sameeyay dibadda garoonka ST James Park ee ku ciyaarto kooxda Newcastle United, iyaga oo ku faraxsan in kooxda laga wareejiyay gacanta milkiile Mark Ashley oo loo arkay nin kooxda la degay oo aan dhaqaale gelin.